waxaa ka qayb geli jiray oy gaar u ahayd beelaha hawiye daarood iyo digil iyo mirifle ma ka qayb geli jirin oo looguma yeeraynin beelaha beesha shanaad iyo dir kaasi waa weji uu lahaa kow shirarkii u madaxweyne farmaajo qabanayo ta labaad waxaa la odhanayay waxaa ka qayb gelaya shirka waxaa isugu imanaya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada horta marka ugu horreysa dowla waxay ka kooban tahay 3 laamood waxa weeye waa baarlamaanka ama sharci dejinta waa xukuumadda iyo garsoorka yaa isugu imanayay shirarka waxaa isugu imanayay madaxweynaha dowladda dhexe oo mararka qaarkood prime ministerkii hal mar oo keliya ka qayb galay iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dowladdu ma waxa weeye ma madaxweynayaasha dowladdu maya dowladdu waa 3da madaxweynuhu wuxuu ka yahay waa xiriiriyaha 3da laamood ee dowladda shirarkaasi sidaasay u socdeen waxaanan u arkaa inayna ahayn shirar loogu raadinayo Soomaali cadaalad iyo midnimo waxaa ku xigay kan hadda ka socday baydhabo halkaa waxaa ka qayb galay 14 xubnood oo 7 meelood oo min 2 wasiir ah 6 meelood oo min 2 wasiir ah iyo gobolka banaadir oo 2 xubnood 14 ka xubnood ayaa ka qayb galay waxaa la leeyahay waxaa laga heshiiyey sidaan warka ku maqlaayo 3 arrimood ee ay ku heshiin waayeen madaxweynayaashii shirarkii hore ka qayb galay hadda yaa heshiiyey marka su-aashaydu waxay tahay shirka ayaa ku heshiiyey horta marka ugu horreysa waxaan leeyahay dabeecaddii shirarkii madaxweyne farmaajo uu qaban jiray unbay leedahay waa intii oo wasiirra loo bedelay ee cid kale oo tagtay ma jirto kow markaan si gaara uga hadlo Somaliland dowlad ahaanna uguma jirto dadka halka u jooga ee matala Somaliland ee midnimada u jooga midnimada Soomaaliyeed muddo dheer u joogaana kama ay qayb gelin oo xuman kuma laha su-aashaydu waxay tahay yaa noo matala waa ay cidda noo heshiinaysa ee heshiiska sidii professorku sheegay heshiis ma jire waa naloo heshiiyey annagu heshiiskaas qayb kama niin dhallinyaroy waxaan idiin sheegaya bil iyo 9 cisho ayaan Hargeysa ugu xidhnaa midnimada Soomaaliya 30 sano markii dawlad jirtay markaan ka reebo 30 sano ee dalkani burbursanaa ee dawladdii Soomaaliya ay jirtayna xamar kama aan bixin dib iyo dheef waxay lahaydba qayb baan ka ahaa aniga iyo kuwa fara badan oo midnimada Soomaaliyeed u taagan maanta in la yiraahdo ma jirtaan tala kuma lihidin qaranka Soomaaliyeed in u dadaalaynay waxaan qaadan karna ma aha waxaan u sheegayaa shicibka Soomaaliyeed anu marar fara badanna waan ka hadlay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo aniguna waxaan isku diidnay iskuna diidanahay waa dastuurka oo aqalka aan ka ahay gudoomiyaha ma uu aqoonsana dastuurkana sidoo doona ayuu u jabiyaa waxaan maqlayaa maalmahan 2 arrimood oo muhiim u ah dalkan jiritaankooda muhiim u yihiin laakiin u baahan inay sharciyad hesho oo procedure-ka ay marto oo aan xusuusnahay habeenada kamida inuu noo yeero aniga iyo gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha gobolka
laakiin ayna saddexdeeda ku koobnaan ee ay ka soo qayb galeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Muudey iyo 3 xildhibaan oo kolkaas su-aasha la keenay ahayd madaxweynuhu keenay 13 xubnood ee golaha shacabku ansixiyey anna aan ku raacay ayaan rabaa in aqalka sare ay ku biiraan waxaan idhi anigu yidhi adaa noogu da'weyne tala keen waxaan idhi 13 kuyay matalaan waxa weeye gobolka Banaadir xuquuqo badan baa ka maqan shicibkani waa dulman yihiin haddaa tala i weydiisay waxaan soo jeedinayaa in gobolka Banaadir uu yeesho maamul uu doortay oo hawlihiisa ka shaqeeya markaa kadibna ay doortaan gole xubno uga qayb gala aqalka sare oy soo doortaan tiro sheegi maayo baan idhi laakiin xubnahay soo doortaan aqalka xubnaha jira waxa weeye marka laga reebo Somaliland oo dadka uunu jooga halka midnimadu ay doortaan xubnahooda inta kale waxaa soo doorta dowladaha xubinta ka dowladda federaalka ayaa soo doorta marka uu gobolka Banaadir statuska helo ee uu doorto xubno ha ku soo biiraan kolka qodobka 54 ee dastuurkan labada aqal ha bedelaan markaas taa intaasaan idhi kadib wuu ka baxay madaxweynuhu arrintaa ee laba arrimood oo hadda idiin sheegi doono ayuu mid soo qaaday oo wuxuu yidhi xukuumaddu waxay ansixisay golihii guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan idhi madaxweyne xukuumad sharci ah oo sharciyeysa guddigii musuqmaasuqu ma jiro ee horta kolka hore prime minister magacaaw oo xukuumad ha la dhiso markaasay noqonaysa arrinta labaad ee aan leeyahay sharciyad ma haysato oo hadda madaxweynuhu waraaq uu ku sheegayo kolkii xilkiisii dhammaaday uu leeyahay waxa weeye uu ku soo saaray digriiga uu soo saaray qoraal ku soo saaray waxa weeye waa guddigaas la dagaalanka musuqmaasuqa iyo golaha adeega garsoorka laakiin golaha adeega garsoorka ayaan anigu arkay waraaqdiisii markaas waa ka jawaabnay anigoo la tashaday guddoonka labada xubnood ee guddoonka aqalka qoraalkii aan soo saarayna waad aragteen labadaas arrimood labada midna ma jirto dadweynaha Soomaaliyeed yaan lagu wareerin oon la gelin tan doorasho waxaan leeyahay Soomaalidu waxay tidhaahdaa taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa hadda waxaan leeyahay arrinta Soomaaliya waxay u baahan tahay inaynu si fiican uga baaraan degno inaynu isu dulqaadanno oo tanaasul iyo wax isu quudhis aynu samayno sida aynu kolkaas wax ku noqon karnaa heshiis ku gaari karnaa doorasho ku samaysan karnaa waa isu tanaasulka iyo isu imaansho dadka ay khusaysa siyaasaddu inay ka soo qayb galaan